anigoo tixgelinaya qodobada ajendaha waa 4 qodob 3 mid waa laga hadlay labada kale ka labaadna mudanayaasha iga dambeeyaan u dhaafayaa ka saddexaad baan qaadanayaa maxaa laga baran karaa doorashadii ka dhacday dalka oo maanta anigu taan isleeyahay way ugu importansan tahay marka ragga iga dambeeyaan qodobka labaad u dhaafayaa ka saddexaad baan u gudbayaa waxaan leeyahay waxa laga baran karaa ilmo nabi aadan intii inoo timi iyo intii ka horreysayba waxaad moodaysay sanadkii 2024 in dimuqraadiyadda dalkeenna ka dhacda la hadlayo doorashadii markay dhacdayna af aan lagu sheegayni may jirin nabadgelyada sida kuyuyada aynu ku jirno sida nabadgelyada ah ee ay u dhacday ee aan laba gabdhood madaxa isu qabsan sida aynu ugu kala qanacnay ee iyadoo ah doorashadii abid ugu badnayd cod lagu kala helo intaynu doorasho gelinay in madaxweynihii markaa joogayna uu ku qanco oo uu hambalyeeyo madaxweynihii kale ilaa maanta ilaa maalintii ay dhacday waa la faalaynaya haddaba maxaa laga baran karaa baynu socnaa ayaan u socdaa waxaa laga baran karaa inaynu adduunka baragshar ku saarno in ay noocan aynu dhaqanka iyo dimuqraadiyadda iyo mobilizationka isu raacnay ama hubka dhigista waxaan la yidhaah waa la xiisaynaya marka innagoo aan waxba la kala ordayn in aynu ku faanno waxeenna mar hadday faankii inooga horreeyeen iyagoo ina faaniyeen inaynu xejisanno oo aynu ku kordhinno sidii aynu adduunka waddamada colaaduhu ka dhaceen ee afrikaanka iyo adduunyadaba aynu ugu tababari lahayn noocaynu dimuqraadiyaddii waxeenna iyo dhaqankeenna iyo dal burburay sida loo dhiso weeyaan waayo innagu sida soomaaliyadan aynu ishaysanno ee nala murmaysa maynaan dhaxlin qalin iyo waraaq xafiisyada saarana waxaynu dhaxlay dal aad moodo horushiimo nuclearkii lala dhacay oo kale dalu ku dhacay bay ahayd aad iyo aad anigoo uga mahadnaqaya sidaad ii dhegaysateen waxaan leenahay waa inaynu resolution soo saarnaa inaynu ogol lahay inaynu adduunka ku tababarno noocaynu isu waafajinay dhaqanka dimuqraadiyadda iyo daldhisidda aad iyo aad baa mahadsan anugu de ma qabo wax tegey doorashada iyo meesha haddeer ma taalo doorasho ya laga hadlo way dhammaatay already way dhammaatay laakiin wax weeye maxaa taagan in laga hadlo baa muhiima maxaa taagan in laga hadlo baa muhiima way kuna muuqataa aniga wasaaradda arrimaha guduhu waajibka koowaad ee ay leedahay waxa weeye nabadgelyada ama dowlad ahaanba dowlad ahaan guud ahaan gaar ahaanna wasaaradda daakhilugu waxaa baryoradka koowaad u ah nabadgelyada dalkeennina waad ogtahay guddoomiye ilaa iminkada xukuumadda iyo dowlad ahaanba wax mowqif oo arrintaa caargaaba ka taagneed haddeer 3 bilood wax allaale wax aynu ka maqalnay ma jirto oo mowqifkiisa xukuumadda waxa ay ka qabto arrintaa iyada guddoomiye dabaad iga mashquulshay waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha qodobo badan baa dee hoos yimi anigu 2 qodob baan ka soo qaadanaya waxaan ka soo qaadanayaa ta koowaad nabadgelyada baryoratiga wasaaradda arrimaha guduhu ama dowlad ahaanba waxa weeyaan nabadgelyada haddii nabadgelyo la waayo waxba ma jiraan dalkeennana waad ogtahay waxa ka jira doorasha la soo marayo waxaas maanta inooma taalo dalka waad ogtihiin meesha uu marayo xukuumadda ilaa iminkadaad ama dowlad ahaanba waxa allaale wax mowqifkeedii ay ka qabtay ceergaaba arrintaas 3 bilood ka soconaysay lama hayo mana maqal kulli anigu mowqifka ay ka qabto 3 bilood baa halkaa wax ka soconaya ilaa iminkada mowqifka xukuumadda ay ka qabto ma sheegin
ميانكو هذا كل مرة وذاك ما قاعدين ما مقرسان أرنتها يضع بحوذ لا بتقول يلا الله يهضي يا محلو دجالهم ويا قبل كي يجيب قبنا يبغى صل هذا ودجالهم هنا قبل لبى قبنا يا وحوي أرنتها يضع إن لقاه الله أو دور ذهان يحكومة ذهان يوسر الدغران إن بريورة تقال لقاه الله تاسع ما بريورة سوا قبل كذا نصدق بريورة هذا القبنا يجي ربصودو كالسعودين واحد كذا عيا وقتي واحد لا إما كذا حكومة يدور ولا مصنت هاي وأنا لا يعبسنها وأنا واجب كحكومة الدلك بس أما حكومة صارن أما إنك صارن تانا بعد وحوي وروح على العلنية بحروح على العلنية قبل كان دقينا هدانوه وأنا هذا قبل كذا حنا قوانيا وحوي يا تا يضع حكومة موقف كذا هنوشك أما الدولة بحامل هاش يكتو ها عطيسو واحد قبل كان قبضته هذا لا هذا وايد ترى هذا كنت يا حوي لما كان سوق ليتك ولا جهلك ريسورسكي ودنك يلي ريسورسك وحوي قنيمة لك الناس روحي هاي ده وحي براه وحي لك ياله لما كان ساقرته ورما منك وحي ما ربط أفرت باور بحال أو براه قريها يجي بهدر قريها هذا اللي قلت يجي بالغيسته وبراه سكتوما ومنسان صار أو دبتنا دوف صلاح وأنا ما كدرك هلا قبت قدومي لما كان سوق ليتك عند كوس قالنا هالله يرو أنا وأنت هسه كوس قومي وحي رونا يالس سوق ليتك بالله هاللاي سوق ليتك يوي هاي باهرت كوريسة وحنوجين أرمها جدها دولة دي هراء سوق ليتك dadka lagu sheegaya inay noo soo galaan mooyaan arrimaha ka weyn aynu wada galnay oo aynu heshiis ku nahay oo la wadaan ogeyn tan dambe dawladda timina waxaan jadan dambe ka soo saartay ma garanayno marka nin kula jooga lama xanto de waxaan ku xanto hadeeraan soo galootiga ma garanayo arrimihii hore oo aynu heshiiska ku ahayno inay noo soo galaan mooyaan wax ka weyn aynu ku heshiisahayn baaba jirtay taa haddaan halka kaga gudbo arrimaha nabadgelyada goluhu waa golo soo jiray oo maaha dawladda cusub oo timi maaha waa golo shaqaynayo soo jiray waa golo anjadale waa golo kharash leh haddii xitaa dawladdu cusub tahay goluhu waxay ahayd wixii uu qaban karo iyo wuxuu tala gudbin karo inuu gudbiyo arrinka laga hadlaayo gobolka Ceerigaabana dee waxaan aaminsanahay gobolku waa gobol Soomaaliland haddii dee la aaminsan yahay cid baa iskaga tagtay oo dee taa lagaga qanacsan yahay waxaan qabaa nabadgelyo darro Ceerigaabo kuma noolaan karto oo cidda istiraada maanta adaa gacanta ku hayo saa ugu haynaya inaan la kala dhib la'aanayn baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dhiigga intii la badbaadin karo in la badbaadiyo dadka in lala hadlo wixii loo sheegi karo loo sheego gobolku dhibaato badan baa ka jirta dadkii baa ka qaxay magaalada dhinac dhan baa dansan habeenkii iyagaa dhibaato badan ku qabo wax la sheegayaa habeenkii dhinaca dansan marka la isugu soo galo in la iska kala shakeeyo habeen walba cid ku dhimanayso oo inta wada joogta aanay nabadgelyo sax ku haysan waxaan aaminsanahay gobolkaasi inta ka jirta intaan mid ka sii korodhaanayno iman wixii aynu qaban karno inaynu qabanno in loo dadaalo salaadiin iyo guurti iyo ciddii wax qaban kartaaba inay isu taagto awoodeenna wixii ilaahay nala qaban karo aynu qabanno wixii awood la'aan lagu qaban waayo oo shaydaan ka shaqaynayo dee cidiba ma badbaadin karto laakiinse waxaan aaminsanahay inaynaan laba salaadiin baa marka hadashay oo kuwa kale oo dhaadheer oo kaba qurqurux badan baa ka hadlay oo yiri waxooda waxba kama jiraan waa la dagaalamayaa ilaa meel hablaa la gelayaa iska daba hadalka iyo salaadiinta iska daba hadlaysa ummaddu way daawanaysaa waxay odhanayaan kuwii u dambeeyey waa kuwii markii u dambeeyey hadlayay salaadiinta hore si wanaagsan bay uga hadashay nabadgelyay sheegtay aan isaga nimaadnay sheegtay laakiinse dee waa la buriyey
oo dadku ma kii dambe qaadanayaan mise kuwii hore qaadanaya waxaan leeyahay salaadiintii hore hadashay oo sida wanaagsan uga hadlaysay hal la helo madaxweynaha talo wanaagsan hal la siiyo gobolka hal laga hawlgalo sida ugu dhaqsaha badan intaan fidmada fidma ku kordhin oo dhiig islaameedna ku daadanin anuu hal qodob baan ka soo qaadanaya siyaasadda gudaha aanu galaya sidii maxay tahay mudaniga horeeyay uu ka hadlay labadii sano ee imkayna soo dhaafay waa dalku xaalad colaadeed ku jiray xaaladda colaadeed ee ku jirayna maxay tahay maanta maxay tahay de waxa ugu daran cerigaaba ugu daran xaaladda cerigaaba gudoomiye iyo maxay tahay mudane madaxweyne inaynu ka aamusno oo maxay tahay aynu ka aamusnaan kaga jawaabna inooma habboona waa in inagu ugu horeyn aynu golaha guurtida haddaynu nahay aynu dadka toosino kala hadalno maxay tahay sidii aynu nabadgelyada uga shaqayn lahayn nabadgelyada cerigaabana aynu maxay tahay u raadin lahayn waa in siyaasad dhamaystiran aynu ka yeelana haddii aynu golayaasha nahay haddii aynu nahay xukuumadda haddii aynu nahay maxay tahay madax dhaqameedka waa in tala qaran laga yeeshaa siyaasadda maxay tahay cerigaabo waayo waxa la yidhi bidaar sibiq bay kugu gashaa laasacaanood baynu ogeyn maxay tahay sida maanta halka ay fareened inay ka baxday xaaladda cerigaabo ma mudna maanta inaynu ka aamusno gudoomiye idinkuna waxaa noo ballan qaadeen maalintii hore in war aad ka keenaysaan madaxweynaha wax war aad nooga keenteenna ma jirto xaaladda cerigaabo waa inaynu gudoomiye aynu maxay tahay dhaxda u xidhanno oo sidii nabadgelyadeeda aynu uga shaqayn lahayn uga shaqayno qodobkaasaan anigu saboodayaa oo taageerayaa qodobka siyaasadda arrimaha gudaha farqadda koowaad wax ka qabashada arrimaha soo galootiga ee dhaqaale doonka haddii aan ka hadlo farqadda koowaad ee wax ka qabashada arrimaha soo galootiga arrintaasi waxa weeye arrin aad iyo aad saamayntiisa u leh dadkaasina waxay noqdeen dad xadhkaha soo goostay oo aad u fara badan maxay tahay dhaqaale doonka waxaa kaga daran caafimaad darrada qofkii uu iska soo tallaabaya waxaad arkaysaa qaar lagu go'an yihiin qaar gacmu go'an yihiin qaar lagu barareen caafimaad darraday wadaan dadka soo galootigay ayaa ka badan intan ay dhaqaale doonayaan waxaan leeyahay waa in arrinkaa wax ka qabashada arrinka soo galootiga sida aynu waraysi ula yeelanno waa in loo yeedho maxay ahayto qoladan la yidhaahdo ciidanka la yidhaahdo immigrationka waayo dee waxaynu ku leenahay xuduudda immigrationno badan meesha laga soo gale ugu badanina waa wajaale qodobka labaad ee ah ma ganacsan karaan dee taa waxba ayna kama weydiinba waxaad arkaysaa iminka dukaamadii cashuurta bixinayey ee loo furtay dadkeenna dee muwaadiniinta furteen ciid istaagaysaa ma jirto meel walba qof soo galootiya oo garabka iyo gacmahaba ku sido wixii la iibsan lahaa oo aan cashuur bixinayn ayaa jira dee taasina waxay u baahan tahay wax ka qabasho waa arrin aad iyo aad u muhiima marka anigu waxaan leeyahay dee sida ugu dhaqsaha badan waa in wax looga qabto wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigrationkaba waa in arrinka wax ka qabtaan oo loo yeedho qodobkaas sidiisaba dee xildhibaanadii ugu horreeyay way ka hadlaan nabadgelyada gudaha marka la yidhaahdo way ka ballaaran tahay intaynu ka hadalnay waxaynu ognahay dee dalku inta aynu ku soo koobno inaanu hayno dalku ka ballaaran yahay nabadgelyadiisu gobolladii bari waxaynu ognahay inay wax ka jiraan dowladduna waynu ognahay oo inay cusub tahay waynu ognahay waxaynu u baahannahay haddaba sidii laysu waafajin lahaa xukuumadda cusub ee timid siday uga howlgeli lahayd nabadgelyada iyo sidaynu inagu ula shaqayn lahayn golo ahaan inaynu nabadgelyada ugala shaqayn lahayn iyo waayaagnimadaynu inagu haysan ninka golo guurti ahaan in labada la iswaafasho waynu u baahannahay dowladda waxaynu uga baahanna oo kale inay xukuumaddu iyo ay samayso inoo caddayso istiraatiijiyad cad kolle u degsan tahay hadda ay caddaysan istiraatiijiyad halkay marinayso inay wax ka qabato marka halka nabadgelyo waxaa kaloo aynu u baahannahay gol ahaan dee arrimaha nabadgelyada innagaa u xil saaran waxaanad mooddaa inaynu
si uga yar gaabinayno roolkii golaha guurtu lahaa inaynu soo celinno de iyadoo tan ku xun baynu soo joogno calal caday guurtu qaadan jirtay odayaasha war fadhiistaa war kala doos oo taa lagu kala badbaadiyay war roolkeen inaynu soo celinno hagaana taasan ka odhan lahaa tan soo galeytiga idinku toona ka hadlaysaane haddaan ilaahay naga joojin halkaa galbeedka Itoobiya waxa ka dhacay waynu ognahay fulkaanaha qarxa waynu ognahay waxaa loo kala qarsoon ma jiro waynu soo soconaa kilkii shanaad soo gaadhay gariirka weyn fulkaanihi wadadii Djibouti goodo waynu ognahay bal idinku kii hore aynu ka soo socda waxaynu ka meel dhigan lahayn iyo istiraatiijiyad meel uga dhigan lahayn deena waa dad socdee dawladda iyo dadkii cidi walba meelaha si dhigtay istiraatiijiyad laga yeeli lahaa kii horena de waynu arkaynaa in wadankii la wareegay baalashan jirin kii wax meelayay ku kasta waxaynu u baahanahay in aynu sameeyno wixii waxa lagu hortagi lahaa istiraatiijiyadii lagu hortagi lahaa iyo in kuwa hore wax laga qabto kulley labada qodob ee isku horreeya waa isku mid oo waxay iska sawaabiyaan xagga soo galootiga qodobka hore wuxuu sheegayaa wax ka qabashada arrimaha soo galootiga ee dhaqaaladoonka ah ee sita kaarka saadka ka kalena ajaanibka aan si fashal ku joogin waddanka ma furan karaan meherado shaqo horta qodobkan aad buu ballaaran yahay dadkan dhaqaaladoonka ama qaxootiga ee waddankeena joogaana waxaan u maleynayaa inay ka baxeen xadka oo waxay gaadheen heer aanan xataa la xakameyn karin waxay la baxeen marka koowaad shaqadii dadka muwaadiniinta ay qaban lahaayeen oo ay ka mid yihiin nadaafadda timajarihii ilaaliyihii baabuur maydhihii baalashlihii qoladii bunka hoteelada magaalada dhan karinaysay ama hoteelada haystay jaariyado ilaa iyo qoladii sadaqadoo islaam waliba wata 8 carruur iyo 6 carruur tabu yeeshan wadato taasi waxay noqonaysaa inay arrintaasi xaddaaf ay ku noqoto dadkeena maanta haddii la qiyaasana waxay noqonayaan dad ku dhowaanaya ilaa 20 kun qof arrintaasi markaa waxay noqonaysaa mid faraha ka baxday arrintaas waxay noqonaysaa mid faraha ka baxday oo gaabinaya sidaa darteed waxay noqonaysaa in way ka awood badan tahay baan u arkaa in ay wax ka qabtaan immigration dalka waayo immigration-ku waxay u qaban lahaa ama dadka u qaban lahaa ka batay waayo waddanka oo dhan meel kastoo joogto hoteelka siigaa jooga meel kastoo imika meelaha aan sheegay timaajirihiyagaa jooga kuwii baabuurta meedhiga weeyey kuwii baalishka waday iyo kuwii xataa qarafaysanay dadkeennii ilaga walan dad masaakiin oo qarafo u baahan kuwii laftooda xataa way ka xidhan marka waxaan horta ka hadlaya taasi waan ka hadlaya taas tan kale ee meherada ma furan karaana waxaa taasi in aan jecelahay in loo yeedho taliyaha immigrationka ama immigrationka ku shaqada leh si ay arrintaasi loogala hadlo inay awood intaa u leeyihiin inay awood u leeyihiin inay ka qaban karaan qodobada qodob isku sidkan waxaan ku dhaafayaa sidaa waxaan ka hadlayaa qodobka kale ee odhanaya maxaynu ka baranay doorashada isku sidkaneed doorashada isku sidkaneed waxaynu ka baranay waxyaalo badan oo ka mid yahay sida qabiilka iyo xataa la isku sidko iyo dimuqraadiyadda oo dimuqraadiyadda iyo qabiilka isdhex socdaan haddana doorasho wanaagsan aanu samaynay alxamdulilah maanta si wanaagsan bay noogu dhacday waa la isambaliyeeyey dalkiina maanta nabadgelyo oo doorashada noogu dhacday ayna noogu hagsan yahay oo waanu ku ducaysana taas alxamdulilah rabbil caalamiin waxa kale oo aynu ka baran karnaa in dadku inoogu hambalyeynayaan marka aynu doorasho wanaagsan qabanno ku dhowaanayno mar walba inaynu helo ixtiraaf oo waxaan arkayay waddanno badan afrika u badnaato asia ilaa iyo america inay idaacaduhu ka warramayeen doorashadii sida wanaagsan uga dhacday somaliland qodobkeena jantaa waxaa laga hadlayaa waa siyaasadda arrimaha gudaha siyaasaddii arrimaha guduhu waxa weeye wasiirkii hore iyo dowladdii hore tagtay siyaasaddii arrimaha gudaha
doorashadii si fiican bay inoogu qabsantay kambeynkeedii iyo natiijadiiba si fiican bay u qabsantay nabadgelyo ah oo bilaa turxaana wasiirkan cusub ee imika yimidna cabdalla maxamed carab oo hambalyeynayna haddaynu nahay guurtida uu ku cusub iyo kursiga waxaan leenahay cabdalla maxamed carab ku soo dhawow wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland waxaa kuu taalla hawl fara badan oo arrimaha gudaha ah ayaa kuu taalla allah kuu sagro waxaa halkan laga hadlaya qodobadii kale waa la sheegee kala xadaynta maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka halkaasi hawl fara badan ay u baahan tahay dowladdani waa dowladdii lixaad shantii hore midna may kala xadayn gobollada lama kala xadayn degmooyinka lama kala xadayn waxay u taallaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka cusub iyo dowladda cusub ku soo dhawow wallahi cabdalla maxamed carab ajaaniibta sifada sharci arrimaha soogaleytiga iyo dhaqaale doonka ah waxaan filayaa marka hore dee dhaqaale doonka ma yimaadaan iyagoo qaxoontiyiin bay yimaadaanoo hay-adaha gacanta ku hayo oo dee dalka waa laynala xukumaayo cid kalaa hay-ado kale aynala xukumaa wax qorshaysanoo in meel lagu xareeyo dadkaa la qaabilayo oo inoo qorshaysanoo in meel lagu xareeyaana ma jiro marka ilaa aynu xeerarkeenna xeerkii magaalyadoonka iyo barakacayaasha ilaa aynu dib ugu noqonno waxaan is leeyahay wax badan oo soconayaa ma jiro culays badan baa jira culayskaa badani dee dalkana wuu ku hayaa dadkana wuu ku hayaa degaankana wuu ku hayaa taa waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay inaynu xeerarkii dib ugu noqonno xeerku markuu shaqo gale ee dhaliila ka godolooli soo baxaan in la awdo dib loo eegaabay u baahan tahay marka taa halkaasaan dhigaynaa qodobka labaad wax xuquuqda bini'aadanka uu leeyahay baa ka mid ahoo waxaan isweydiiyaa oo aanan weli imika fahmin dadka soconaya tahriibka u socdaa markaad bari ilaa galbeed u socoto waddadaa dheer bay marayaan dadkaa waynu aqbalnay inay ina dhex socdaan waxaynu se u diidnay inay gaari raacaan anuu macnaha ku jira maan fahmin mushkiladda xuquuqda bini aadamku waxa weeye qofkii inaad celiso aanu ku dhex marin iyo mar hadduu 1200 kilomitir soconayo inaad tidhaahdo gaari ha raacina idhex lugee qalad baa ku jira dad badan baa bahal u cunayaan oo dayacma oo jidadka ku dhimanaya marka waxay u baahan tahay inaynu arrinkaa dee dib ugu noqonno waxaynu u baahannahay haddii ay soconayaan si official u soconayaan inay dadkeennuna dhaqaale ka helaan dhaqaale weysitaanoo dee baabuurtan qaadaysee noolka ka qaadanaysa loo fasaxo oo at least inta halkaa uga jaale xuduudka markuu ka soo baxo gaari laga saaro oo nin immigration la saaro ilaa xuduudka kale waa inuu si nabada kaga gudbo ilaa boos meeshuu doonaha tagay laakiin adiga xuduudkaaga ilaa xuduudkaaga waa inaad mariso qodobka waxaan is leeyahay dee insaaniyaddaaba ku jirta inaynu aqballo qof halkaa lugaynayo oo aad gaari inuu raaco oo lacagtiisa ku raaco aad u diido markaa taa waxaan is leeyahay aynu dib ugu noqonno runtii qodobka labaad tasaadka waxaan is leeyahay saadka siyaabaha loo furaya kollay qof kaar le baa fura muwaadiniinunbaa ku lug leh ama ha ku shaqaystaan iyaga ama ha ka shaqaystaane waxaana lagu maqaalaa in kaararkanba ay kireeyaan niman muwaadiniini taasina waxay u baahan tahay inaynu dadkeenna ka wacyigelinno qodobka saddexaad ee kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka muddo badan baa in la kala xadeeyo in la qiimeeyaaba ayaa jirtay muddooyinkii u dambeeyey ilaa xukuumaddii u dambaysayna waxa yaallay dee gobolka gabiley oo hadal hayn badani jirtay oo golayaasha la keenayay kii waxaan leenahay aynu isagana hala keeno oo dee golayaashii ha laga dhamay wixii ka dhinnaa sharciyan dowladdiina way timi waanay ballan qaadeen iyaduna waa inay fuliso gobollada kale kala xadayntood iyo waxoodana iyaduna waa in la raaciyo qodob kalaad oon halkaa degmooyinka kaga hadlayno beryahan dambe dadku bini aadamku haddii qofku wuxuu qabto laga mahadnaqi waayo ilaahayna looma mahadnaqo golayaasha deegaanka oo ay ugu horeyso magaalada Hargeysa
maayarka magaalada Hargeysa iyo golihiisa deegaanka iyo guddigiisa fulintu shaqo aan la qaban dhowr iyo 10 sanadood ee dawladaha hoos shaqeynayeen ayaa golaha deegaanka iyo hoggaanka haya uu qabtay ma mudna in la caayo ma mudna in la dhaliilo waxay u baahan yihiin in la iska rab taago oo wixii wanaagsanaa ay qabteen lagu taageero waxaan arkayay iyadoo magaalada degmooyinka xaafadaha loo kala abtirinayo oo la leeyahay degmo Hiblaayo dhaqaale badan iyo degmo Hiblaayo dhaqaale badan ma jirto degmo ka dhaqaale badan magaalo kaliya inuu ku wada noolahay isu socodka la sameeyo wado waliba waxay u baahan tahay dadku inuu isgaadho kabka ugu badan ee Soomaaliland qaadato berbera laga soo saaraa Hargeysina ma bixiso meel kalena ma bixiso haddana kabka Hargeysa dhaqaalaha ugu badan baa Hargeysa lagu bixiyaa waa ceeb aan leeyahay in la yiraahdo degmo Hiblaayo lacag badan xagee la geeyaa iyo degmo Hiblaayo lacag badan waxaan soo jeedinaynaa in laga waantoobo dadka dabada ka riixaya danaha gaarka ah shalay baynu haynay oo maayarka magaaladu uu ahaa dadka magaalada degmooyinka laga cabanayo dhaqaalaha ugu badanna waa bixinaysa maxaa ula xisaabtami weydeen baa su'aashu tahay waa ceeb baan leeyahay arrinkaasi hana laga waantoobo qodobka saddexaad ee aan gobolada iyo degmooyinka ka hadlaynaa bari waa laga sheekeeyey arrimo badan baa yaala nabadgelyaduna waxay u baahan tahay marka nabadgelyo laga shaqeynayo in dhinacyada colaadda isku haya labadaba gacanta lagu hayo oo la wada hadashiin karo oo ay ku wada kalsoon yihiin waxaan filayaa innaga gol ahaan iyo Soomaaliland ba dhinacba imika qolada harti iyo qolada maqaliba ay ka wada yihiin oo way ka wada maqan tahay waxaan Axmed Nuur kula kaftamaya qolada gahayla dhexdhexaad noqon karayso talaabi karayso bal adigu intaad ciidanka haysto horta bal xagga nabadda ka soo ururiyo inana xaggan xoogga isugu geyno intaana waxa isleeyahay qolada gahayle iyo qolada madhibaan iyo beelaha badan ee dhowr iyo 10 beelood baa lagu sheegaa gobolka Sanaag oo degan war haddii isaaq iyo harti ay laba meelood u kala boodeen bal waxaan leenahay annana aanu idin kaabne waxaynu u baahannahay inaa idinku ka erga tagtaan oo isu soo dhaweysaan oo dadka barakacay ee dhibaataysan sidii magaalada loogu soo celilaa gogosha nabadda ee la dhigay madaxweynuhu dhigay qaranku dhigayna aynu u wada fadhiisan le biduun sabab inagoo aan shuruuday waxba toona ku xidhan marka taana aan culayska wada saarno dee golaheennuna xitaa beelaha hadday tegayaan oo dee Axmed Nuur iyo wax soo jeedinayaan dee hal la gacan qabto iyaganoo sidii hawsha oo igu fura dhuudhuublan laayeen dee wixii uu sahli lahaaba waxaan soo jeedinayaa in la qabto oo inaga lafteena qorshahaas xaggeena uu ka yimaado qodobka u dambeeya maxaa laga baran karaa waxaan isleeyahay Soomaaliland mala doorashooyinka ka baran mayso waxba iyada laga baranaya dee guddoomiyihii guddiga nabadgelyada arrimaha dibadda way naga baxay waxay ahayd inay kooshineer qaataan oo nimankii dee inoo yimi wax naga qorayay halkan dee yimi in wadamadoodii laga daba tago la yiraahdo maxaa naga barateen marka waxaan soo jeedinayaa inaynu inagu dib u shaqo tagno war bal kuwii inoo yimi ina arkay ina dirsay ina qiimeeyay inaynu ka daba tagno wixii ay qoreen ay ka qoreen doorashooyinka inaga barteen inaga wax la inaga baranayaa maanta inaynu soo ururino xogta dabeetana aynu inana isla wadaagno ummadaha kalena la wadaagno waxa weey siyaasadda arrimaha gudaha qaybta koowaad soo galeytiga iyo wax ka qabashada dadka dhaqaale doonka runtii waxa kale oo isna waxa weey raacsan ajaanibka aan sifa sharci darro ah ku jooga ma furan karaan meheradaha cafwan waxaan ka cudur daaraya marka ugu horreysa gola qaran baynu nahay guddiga joogtada qaabkan ay wax u soo diyaariyaan wax laga bedelo intaas waa iga talo sababtoo ah arrimaha gudaha marka laga hadlayo shu'uunu daakhiliya iyo shu'uunu khaarijiya waa dawladaha iyo ummadaha adduunku ama system of governance-ku waa halka kaliya waxa weeye la doonayo main points-ka ma aha in soo galeytiga lagu horreysay arrimaha gudaha waddanka xaalado badan baa ka jira marka intaas waxa weeye waa iga talo waayo wixii aan ka hadli lahayn badee lama dhaafi karo nuxurkana lagama baxo xaq qoran shirgudoonka idinku dacweynaya dad guddiga joogtada tiin shirgudoon dad aqoon le meesha waxa weeye hal la geeyo qolada guddiga joogtada arrimaha soo galeytiga haddaynu ka hadalno
arrimaha soo galeytiga kulley waddanka nidaam baa ka jira waxa weeye waa in la ilaaliyo adduunka waynu ognahay maanta dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyinka faraha badan ee jira waxa weeye waddan walba wuxuu ilaashadaa arrimihiisa gudaha marka soo galeytiga marka laga hadlayo dad waxa jira sifo sharciya ku yimaada oo processkii soo mara ama fiisayaal ku yimaada ama travel documents ka waxyaabaha saxda ah laakiin dad iska soo gala waddankeenu kolley waxa weeye dad badan baa soo gala sidaa daraaddeed qolada immigrationka iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay aad looga foojignaado arrinka sharciga dadka la weydiiyo duruufo badan oo amni baa jira kuwa dhaqaalaha jira kuwa dhaqandhaqaalaha jira dadka sida sharafta u soo galay waddankee waxa weeye muslim iyo gaalkuu doonaba ha ahaadee ama dimaha ku joogo gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado waxa weeye qaxootiga ku joogee iyagana waa in lala socdo isdhexgalka bulshada waqtigan lagu jira zamankan maanta lagu jira waqti aad u fitan badan marka dee foojignaantu waa muhiim waayaan waxa weeye gudaheennana ilaashanno dadka martida ay nala joogtana aynaan ku xadgudbin qodobka labaad meherad ma furan karaan bay ka dhigeen dadka ajaanibkii dee sida ay tahay ma furan karaan taa waxba dhaafin maayo halkaa ma furan karaan wey arrimaha gudaha wax badan baanu guddoomiyey ka hadlahayn laakiin waxay ku soo qoreen dhaafi mayne siyaasadda arrimaha gudaha kulley dawladduna way cusubtahe insha allah waxa weeye dee wixii talaa siyaasadda arrimaha gudaha nabadgelyada in lagu dareehaydo arrimo badan kala xadaynta gobolladii waxay ku soo dareen gobollada iyo degmooyinka taasina kulley dee xeer baa jira xeerka amendment in lagu sameeyo insha allah bidnillaahi kariim farqadaha uu xambaarsan yahay qodobkani wax ka qabashada arrimaha dadka soo galeetiga dadka soo galeetiga ajanda kasta waynu kaga hadalnaa oo kalfadhi kasta waynu soo qaadnaa haddana wax laga qabto oo muuqda ma arko mana muuqato mana arkayno horta xaqiiqa ahaan dadkaa soo galeetiga ee markii hore shaqada ra'iislayaasha oo keliya la wareegayna maanta aynu ka wada cabaadayno nin walba shaqadiisii ay maanta iyo shaqadii ay lahaayeenba oo dhanba ay la wareegeen waynu dareemaynaa maanta xildhibaanadu waxay u badan yihiin nin soo galeetiga aad looga hadlay laakiin awal hore anigu baa odhan jiray ra'iislayaashii baana laga qaaday laakiin maanta tiinii baa laydinku yimi idinkana waanay soconaysaa oo way imanaysaa run ahaan macmacaanlayaal bay furan doonaan iska da wax kaloo marka inta aanay faraha ka bixin oonay haddana xaaladdu intaa ka sii gudbin da waxa laga qabto oo xukuumadda cusub ee maanta timi waxaa ka qabato oo maayarka caasimaddu waxaa ka qabto caasimadda ra'iislayaasha laga furanayo meheradaha kale noocnoocee laga furanayo nooc kastaba ahaadaane ee la siinayo maxaan ku dhahay shahaadada ruqsadda la siinayo cashuurta laga qaadayo la siinayo ruqsadda ganacsiga uu ku ganacsanayo waxaa laga qabtataa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maayarkana uu soo jeedinaya iyo xukuumaddaba taas waa taas horta waa shaqadii in laynagala wareegay waana dareenteen maanta maalin horena waan idinku idhi nin walba way taaban doontaan laakiin maantay muuqataa wasaaradda maxaan ku dhahday immigrationkana waxaan u soo jeedinaynaa in loo yeedho oo aynu wax ka weydiinaan soo jeedinayaa sida xildhibaankii hore ka dhawaajiyey iyada wasaaradda immigrationka ee wasaaradda socdaalka laantaa socdaalkana ha loo yeedho si aynu wax uga weydiinno arrintaana uga wada shaqayno fadhigana aynu uga kacno in arrintaa sidaynu uga qabanno taa intaasaan ku dhaafayaa meheradaha intaasaan kaga gudbaya iyaga kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka kole dhowr marar horena waan soo jeediye waqtigeedii waa la joogaan u malaynaya doorashooyin hadda naguma soo dhowaa laakiin waxaynu u baahannahay inaynu ka sii tabaabashaysanno sii kala xadayno taana waxaan soo jeedinayaa oo aan leeyahay ha la helo oo kala xadayntii gobollada dee wasaaraddii arrimaha gudaha iyo xukuumadduba ha ka howlgalaan oo ha la helo taana qodobka ku xiga maxaa laga baran karaa doorashooyinkii isku sidganaa ee aynu ka soo gudubnay waxay ahaayeen doorashooyin xasaasiyaddeeda wata oo aad xamaasad u leh haddana sidii ay xumaddu u kacsanayd mar keliya yarun ay degtay oo si yaroo nabadgelya oo qurux badan
oo caalamkuna nagu majeerto ay u dhammaatay la isugu aqbalay waxaa laga baran karaa oo aan anigu is leeyahay bisaylka siyaasadeed iyo dhaqa iyo qaangaadhnimada ummadda reer Somaliland ee dhinaca dimuqraadiyadda ayaa laga baran karaa waxaa laga baran karaa in maanta oo aynu ogaanay in dimuqraadiyadeenu ay kor u kacday oo dimuqraadiyadda curtanka ahayd maanta lugaha isku taagtay oo caalamkuna inoo markhaati fureen cid kasta oo joogtay maanta doorashooyinkeena joogtay oo caalamka ka tirsan meel kasta iyo luqad kasta waa lagu sheegay sidii xildhibaanka hore uu sheegay waa run luqad kasta waa lagu sheegay waa laynagu hadalhayay waxaananu filaynaa inay inoo dhasho in laynagu ictiraafo insha allah haddii la yidhahdo dimuqraadiyaddeenna hana qaaday doorashooyinkaas ku sidkanaa aynu qabannay mar iyo lababa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan ictiraaf ku helno waxaan ku soo ururinayaa siyaasadda arrimaha guduhu nabadgelyada ayay ka turjumaysaa nabadgelyo haddii la waayo siyaasadda arrimo guda ma jirayso waxa weeyaan markaa sidaa maaragtay maayarka caasimadda hargeysa runtii wax badan buu qabtay oo muddo dheer aan waxba laga qaban oo caasimadda ah wuxuu mudan yahay in lagu hambaliyeeyo in lagu garab istaago si uu ugu dhiirado inta dhimanna inuu dhammaystiro laakiin in la dhaliilo oo laaflagaadeeyo runtii kuma habboona baan leeyahay marka waxaan leeyahay maayarku wax badan buu inoo qabtay ha lala xisaabtamo oo wixii la qabanayo wixii uu qabtay ha lagala xisaabtamo sanadkii tegey kii ka sii horreeyey intii uu fadhiyey laakiin waxaa muuqata in uu wax ka qabtay waddooyin fara badan oo caasimadda ah waxyaalo fara badan oo dowladda hoose ay qabato ayaa jira sida waxaan oraa dad danyara oo ay guryo u dhisaan dad danyara oo ay wax u qabtaan dad danyara oo meelaha khatarta ah sida balligii daami iyo balligii maxaan ku idhahdayey meesha xarunta digaaga u dhowaa oo iyagana siligay ku wareejiyeen kii qudhacdheer oo ay dadka ka badbaadiyeen dadkii ku daadanayay iyo xoolihii ku daadanayay iyo xawayaan ku daadanayayba oo aan uga mahad celinayno oo wax fiican ay ka qabteen marka waxaan leenahay maayarka alla garab istaago alla sii dhiirigeliya si uu intaa in ka badan inoogu qabto aad baanan maaragtay ugu bogaadinayaa wasaaradda arrimaha gudahana waxaan leeyahay gogolle way cusub tahay dee waxaan jecel lahay in haddii alla ka dhigo arrimaha nabadgelyada innaga ka gologuurtahaan innagu dhudheennu aynu ka hawlgallo gobolka ceerigaabo mar labaad baan ku celinayaa wuxuu u baahan yahay ceerigaabo in laga hawlgalo fadhiga laga kaco